السلام عليكم غيرت من الباجوكتان وسلامتهين ومحمد فارح مركله برنامجكي ويلكم كوربس أنا شالي إذا يسوى بندقي أي عدنا أبدين كجا هيا هذا وجين هذا وجو برنامجكي ويلكم كوربس وزير كريم مهدي بده أمريكان كا أنتوني بلينكن أي حكومة واقعي إن دتك أمريكان كا سبونسر جرين كران دتك قحوتيجا برنامجك مركا واسدة شنقف يوحي كبدنا أمريكانا أو individual ayaa barnaamij wada qoranaya qaxooti ee ku caawinayaan qofkii ee caawinaya qaxootiga $2225 ayaa laga qaadaya ama ay ka bixinayaan qofkaas markay keenaan intay keenin kor waa la baarayaa background check qofka 6 bilood ugu horeeyay sanadkan ayaa la keenayaa 9 bilood ugu horeeyay idinka qofkii dadkii keenay ayaa caawinayo hadaba dadka la keenayo oo qaxootiga waa kuwama waa su'aasha ugu muhiimsan qaxootiga la keenayo waa phase 1 iyo phase 2 loo kala qaybiyay phase 1 dadka la keenayo waa dad hay'adda USRAP oo qusaysa arrimaha resettlement refugee programka qaxootiga ee la shaqeysa UN-ka iyo Homeland Security-ga iyo hay'adooyinka kale maxalliga non-profit organization-ka waa hay'ado isku tagay USRAP hay'adaha isku tagay qof ay approve gareeyeen qof ay ansixiyeen qaxooti waa aqoonsadeen hayaan qofkaas ayaa lagu match gareynayaa phase 1 ma dooranaysa adiga phase 1 oo lagu match gareynayaa markii lagu match gareeyo dadkaas ayaa keenaysa phase 1 waa hadii lagu approve gareeyo lagu ogolaado phase 1 marka waa adag yahay phase 2 waan ka hadalna marka phase 2 wuxuu bilaabanayaa asaga 6 bilood dambe sanadkan ilaa sanadka dhamaadkiisa 5 qof iyo wixii ka badan sidii hore caadi ahayd oo individual oo American ama green card haysta ama passport ayaa waxay sponsor gareynayaan dad qaxootiga ee hayso hay'adda USRAP dadkan adaa dooranaysi marka laguma doorayo sidii Facebook hore lagu dooray kan adaa dooranaysi adaa dhayis dadkan aan rabaa la ii keeno laakiin dadka wadadii oo ahaaday UN ta approve gareysay qaxootiga la aqoonsan yahay u gudbisay hay'adda Mareykanka ee USRAP dadkaas ayaa leedahay dadkan ayaan keenadaa dooranaysimkaas lagu keenayaa wixii ka soo qorna barnaamijka wada la socodsiin doona laakiin hadda phase 1 iyo phase 2 gan sidaan weey wax waa laga bedeli karaa wixii ka bedeli doona dowladda Mareykanka ma naqaano wixii ku soo dari doonaan ma naqaano barnaamijka in la diidi doono ama Republican ay diidi doonaan ama la soo gareyn doono oo aqalka hoose maadaama haystaan hadda haystaan in diidi doonaan ma naqaano laakiin hadda waa phase 1 kan iyo phase 2 gan aan idin faahfaahiyay sanadkan waxaa la rabaa in la keeno 5,000 oo qaxootiya waxaa keenayo 10,000 oo Mareykan saadigi sheegay dadka 10,000 oo Mareykanka waa inay ahaadaan ama Mareykan US citizen ama green card haystaan waa inay 5 qof iyo wixii ka badan isku tagaan ay qortaan barnaamijka dadka qaxootiga ku caawin lahaayeen sidee la tahay barnaamijkan wuxuu dan u yahay dadka dhadhaab iyo kaako ma joogo oo Soomaalida qaxootiga ee UN intay approve gareysay resettlement program Mareykanka oo dalbatay oo Mareykankiina hayo dadkan uuna awoodin inuu soo qaado ama barnaamij u bilaabin dadkaas ayay u fiican tahay hadeertan mustaqbalka wixii ka bedelmi doono ma naqaano applicationka wali lama soo deeynin update-yaal badan waa idin la wadaagi doonaa mar walba waa maxaan farax videogan faafi dhammaan la wadaag asxaabtiina